asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaal meel kastood joogtaan waxaad ku soo dhowaataan bartaannu ku leenahay ardaa t v haddaad ku cusub tahay fadlan sabskribe saar daraasad caafimaad cabitaanka biyaha iyo faa'iidooyinka ku jira biyuhu waa nimco ilaahay ku galladay aadmaha iyo dhammaan noolaha kale nimcadaasi oo mudan inay ka mahad celiyaan biyuhu waa nimco ilaahay ku galladay aadmaha gebi ahaantiiba waxaanu ka dhigay nolosha noolaha oo idil waxay intaasi dheer in jidhka aadmuhu 60% uu biyo ka samaysan yahay biyahaasi oo muhiim u ah shaqo kasta oo jidhka ka dhex dhacaysa haddii biyaha jidhka ay ku yaraadaan waxaa ka dhasha xanuuno badan oo aan la soo koobi karin hadduu qofku fuuqbaxo waxaa dhici kara inuu qofku halis galo oo uu dhiman karo inkastoo aan faa'iidada laga helo cabitaanka biyaha aan la soo koobi karin haddana waxaan isku dayi doonaa in aan ka hadalno inta ugu muhiimsan biyaha waxay dheeli tiraan dheecaanada jidhka ku jira dheecaanada ugu muhiimsan ee jidhka ee laga sameeyo biyaha waxay ka qayb qaataan dheefshiidka burburinta cuntada wareegga dhiigga samaynta dherarka xambaaridda walxaha nafaqada si jidhka loo gaadhsiiyo iyo habeyntoodaba waxaa dhacda in kelyuhu mararka qaar kaadida hakiyaan si loo badbaadiyo inta yar ee biyaha jidhka ku hadhay biyaha waxa ay ka qayb qaataan kantaroolada tamarta jidhka taas oo macnaheedu yahay in biyuhu ay buuxiyaan caloosha iyagoo aan jidhka kordhin wax miisaan ah waana sababta ay dhakhaatiirtu ugala taliyaan dadka raba inay yareeyaan ama dhimaan miisaanka inay badsadaan cunooyinka ay ku badan yihiin biyuhu biyuhu waxay awood siiyaan muruqyada jidhka unugyada muruqyada waa muhiim in ay helaan biyo ku filan si ay shaqadooda si joogto ah uga wado oo ah inay dhaqaajiyaan jidhka qaybihiisa kala duwan sidaasi awgeed dadka cabitaanka biyaha ku yaryahay waxay dareemaan caajis tabadarro iyo muruq xanuun waana sababta dadka jimicsina ay sameeyaan ay suuragal tahay inay muruqyada dhaawac soo gaadhi karaan biyuhu waxay caawiyaan shaqada kelyaha biyuhu waxay jidhka ka saaraan qashinka iyagoo kelyaha geeya waxayna ka shaqaysiiyaan qaybaha kala duwan ee kelyaha haddii qofku kelyihiisa ay shaqada joojiso waxay keenaysaa in qofka ay sunta jidhkiisu ku ururto oo ku qasbanaado in la maydho oo mashiin biyo cabitaanku ku yar yihiin waxaad halis ugu jirtaa in kelyahaagu dhagxaan galaan taas oo ay ka dhalan karaan qalin lagu sameeyo kelyahaaga biyuhu waxa ay hagaajiyaan shaqada mindhicirka cabitaanka biyuhu waxa ay ka hortagaan calool istaag haddaa cabitaanka biyo kugu filan ayaa jidhka u leh faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin waxay kale oo ay badbaadiyaan unugyada mindhicirada iyaga oo ka ilaaliya inay dhaawac gaadhaan intaa haddii aan ku soo gebagabeeyo faa'iidada ugu badan ee biyaha laga helo waxaa muhiim ah in la ogaado cabitaanka biyaha nadiifta ay muhiim tahay suurtagalna ahayn in lagu bedelo cabitaanka shaaha cabitaanada kale iyo dareerayaasha kaleba waxaan kugu boorinay daawade ama dhagaystee biyaha la cabo subaxa hore ay ku jiraan caafimaad badan soomaalida waxaa lagu tiriyaa ummadda aan ku fiicnayn biyo cabitaanka maxaa yeelay badanaa waxaynu biyaha cabnaa keliya marka aynu haraadno ama aynu cuntada cunayno oo keliya aad ayaynu u yar tahay inaad aragtid qof isagoo aan haraadin biyo cabaya ku dadaal cabitaanka biyaha waa daawo aan waxyeelo lahayn haddii jidhka ku batana waxaa jidhka looga saaraa si aan dhib lahayn oo caafimaad ku jiro iyadoo la raacinayo qashin saarka uu jidhku sameeyo